habeen wanaagsan dowladda Imaaraadka Carabta ayaa hub iyo gaadiid dagaal waxay ka dejisay magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka u ah maamulka Jubbaland qatar ayuu ku yahay qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ee ay gada ka damacsan tahay xogo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan hubkan iyo gaadiidka dagaal ee maanta gaaray Kismaayo ayaan doonayaa inaan muuqaalkan idin kula wadaago haddii aad nagu cusubtiin nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada nagu xiran aragtidaadana qaybta faallada ama comment kaga soo dhiiba hagaagkan ku bilaabo sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Jubbaland isla markaana uu ku sugan yahay madaxweynaha maamulkaas ee ay doorashadiisu diiday dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa dekedda magaalada Kismaayo ku soo xirtay markab siday hub iyo gaadiid dagaal oo la sheegay in Jubbaland ay ugu deeqday dowladda isu tagay Imaaraadka Carabta tani waa qatar weyn oo ku soo wajahan Soomaaliya iyo qorshaha guud ee ay dowladda federaalka Soomaaliya ka damacsan tahay gobolka Gedo waxa la sheegay in hubkan iyo gaadiidka dagaal ay dowladda Imaaraadka Carabta ugu tala gashay in Jubbaland ay kaga hortagto qorshaha dowladda ay ka wado Gedo ee ah dhismaha maamulka meel gaar ah oo ka madax bannaan dowlad goboleedka Jubbaland ee uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Imaaraadka Carabta dhowr jeer hore sidan oo kale ay taageero dhinaca militariga ah ay la garab istaageen Axmed Madoobe dowladda federaalka Soomaaliyana ma jirto war rasmi ah oo ay ka soo saartay hase haatee xogo iyo macluumaad soo baxay ayaa sheegaya in dowladdu ay qorsheynayso in war rasmi ah ay ka soo saarto waxaase suurtagal ah in dowladda federaalka Soomaaliya xiriirka diblomaasiyadeed ee u jirto isu taga Imaaraadka Carabta ayaa loo arkaa in ay qatar dhinaca amniga ay ku yihiin Soomaaliya sida ay qabaan falanqayaasha arrimaha siyaasadda waxaana tan iyo markii Imaaraadka Carabta iyo dowladda federaalka Soomaaliya khilaaf culus uu soo kala dhaxgalay ay Imaaraadku martigelineysay hagardaamooyin ka dhan ah dowladnimada Soomaaliya in ay martigeliso xubnaha aragti ahaan diidan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladda uu hogaamiyay iminkan dalka ka arrimisa sida Puntland madaxweynaheeda Saciid Cabdilaahi Deni iyo madaxweynaha Jubbaland ee ay dowladdu diidan tahay doorashadiisa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe wixii warar ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal xiriir UK oo ah xirada ay dowladda federaalka Soomaaliya ciidankeedu ku sugan yihiin ee duleedka degmada Beled Xaawo dhacdana waxaa lagu soo bandhigay askar cusub oo dhinaca ciidamadii taabacsanaa Axmed Madoobe ka soo goostay maxay yihiin askartan hub noocay ayay siteen warar ku saabsan arintan iyo dhaqdhaqaaqi ciidan oo xooggan oo ka soconaya saddex xagalka Soomaaliya Ethiopia iyo Kenya xuduudaha oo ay si toos ah u wadaan dowladaha dariska xogo iyo macluumaad arintan ku saabsan ayaan rabaa inaan muuqaalkan idin kula wadaago haddii aad nagu cusubtiin nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada nagu xiran aragtidaadana qaybta faallada ama comment kaga soo dhiibo la wadaag saaxiibadaada si muuqaalkan ay kula daawadaan hagaagkan ku bilaabo xiriir UK waa xirada ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ka degan yihiin duleedka degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo isla markaana si toos ah ugu howlgalayo taliyaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Jubbaland dowladda federaalka Soomaaliya u magacaawday Cabdirashiid Janan waxaa maanta lagu soo bandhigay ciidan cusub oo ka soo goostay garabka ciidamadii taabacsanaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe tirada askartan oo gaaraya 9 askari waxay wateen gaari nooca dagaalka ah oo uu ku xiran yahay qoriga la yiraahdo sakaawaha waxaana ay qayb ka ahaayeen ilaalada ama staafka gaarka ah gudoomiyaha degmada Doolow Lafey oo dhaqdhaqaaq xooggan oo ciidan gobolkaasi dhawaanahanba ka waday isla markaana taabacsan aragtida Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Cabdirashiid Janan oo ciidankan soo dhaweeyay waxa uu ballanqaad u sameeyay in ay heli doonaan xuquuq joogto ah isla markaana uu kaga mahadcelinayo sida ay geesinimada leh ee go'aankan ay u qaateen sawirro iyo muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay Cabdirashiid Janan oo askartan bogaadinaya isagoo midna u gacan qaadaya oo sawirro la soo galay ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca gudoomiyaha degmada Doolow ee Axmed Madoobe taabacsan Lafey uu kaga hadlayo ciidankan ka soo goostay kana mid ahaa ciidamada sida gaarka ah ilaalada ugu ahaa Jubbaland marka loo eego gobolka Gedo degmooyin muhiim ah ayaa gacanteedu ka baxday waxaase jirta in la kala furfuray saraakiisha iyo ciidamada Jubbaland ay ugu talagaleen ay ka hortagaan
qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya maamulku meel gaar ah ugu dhisayso Jubbaland isla markaana la doonayo in lagu qabto Garbaharey oo la aaminsan yahay in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo xooggan oo arrintan lagu diidan yahay dhinaca kalena dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa ka soconaya saddexagalka xadka Soomaaliya iyo Kenya Soomaaliya iyo Ethiopia waxaana wada dowladaha dariska iyadoo oo qorshayaal la sheegay in ay dusha ka riixayaan Maxamuud Sayid Aadan iyo gudoomiyaha degmada Doolow Lafey ay halkaa ka soconayaan dhaqdhaqaaqyadan ciidan waxaa la sheegay in ay si toos ah ugu wajahan yihiin guud ahaan gobolka Gado lama soo oga talaabada ay qaadi doonaan ciidamada dowladaha dariska la Soomaaliya waxaa xusid mudan in ciidamo ka tirsan kuwa Ethiopia xadka lagu soo daadgureeyay saacadii ugu dambeysay wixii warar ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan la sii jooga saaxiibayaal nabadgelyo diyaarku waa xutubay ciidamo ku soo dhaw Weerarsiig nasta باسل نسا نسا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اما بعد سلام بلارن كبعدي waxaan meeshaan kula wareegaynaa cutubiyada kamida waxa uu diiray ciidanka Niisa kuwaas oo ah ciidankii Beesha Raacali Xuseen oo hore uga tirsanaa Jubbaland Axmed Madoobi eedeysanaha ahaa oo tagay hal yar oo kaftana intaan ku soo dhaweynin mas'uuliyiinta wuxuu yiri guuleed Juffa Samantar abdamalaha awrkii xun iyo aaranku dhalo abtina kaama haro meel hadduu aan ku leeyahay nimanka mareexan oo reewa Shirmaaka iyo Cali Maxamed iyo meelaha nimanka ku jira reebtiga oo yihiin reebtiga waa keenay reebtigin dawladnimada u wiiliyaan ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه أدبان نتمركوا كود سلام هيا هذه أدبان وأبو فرح حسنا هاي رجعن قيمها بدن حقيقيا وحان اسنيه كراه رجع له شرف بدن كرامة بدن عيدا نمدو دون أي موقطة باتهين soo dhawaada ku soo dhawaada dawladnimada laga bilaabo saacadan waxaad hoos tagtaan hay'adda Niisa waxaad tiin askar Niisa ah oo dawladeed baatiin xaquuq kasto oo qof bilaadan uu yeesho waxaad ku leedihiin haday darajo tahay iyo dalacsiin haday tahay xaquuq iyo mushaar haday tahay wax kasto oo askari uu baahan yahay xaquuqa dawladda Soomaaliyeed baad ku leedihiin gaar ahaan hay'adda Niisa ku leedihiin soo dhawaada وأكون فرحسنا هاي حقيقيا سيدا شرفتي كرامة أو إلى لسان شخصية دين اللي قبل الله قبل كا دقمدي بلا حواء جوكتين وإن حبت كردين إيوه قرن ماذا الصومالية إلى لسان